golaha ammaanka ee qaramada midoobeed ayaa ku booriyay madaxda dowladda Soomaaliya ee iskhilaafsan in khilaafaadkooda ay ku xaliyaan wada hadal ayna mudnaanta koowaad siiyaan qabashada doorashooyinka qaranka ee dib u dhac ku yimi sanadkan. Guddiga oo ka kooban 15 xubnood ayaa bayaan ay soo saareen Sabtidii waxay sidoo kale ugu baaqeen dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada inay hubiyaan in wixii khilaafaad siyaasadeed ah uusan ka weecin tallaabo midaysan oo ka dhan ah Al-Shabaab iyo kooxaha kale ee xag jirka ah. Qoraalka ay ansixiyeen dhammaan xubnaha golaha ayaa daba socday wada tashiyo degdeg ah oo Jimcihii laga yeeshay xiisada siyaasadeed ee sii xumaanaysa ee Soomaaliya, taasoo kor u qaaday walwalka gobolka iyo kan caalamiga ah ee ku aadan in doorashooyin khatar la gelin karo iyo in gobolka ballaaran uu waajihi karo xasilooni darro hor leh. Kulanka ayaa yimi maalin kadib markii madaxweyne Maxamed Cabdilaahi uu sheegay inuu laalay awoodda ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, waana tallaabadii ugu dambeysay ee xiriirkooda sii kala fogaanaya. shacabka Soomaaliyeed ma xamili karaan culays intaas ka badan, waxaana la rabaa in ammaanadooda loo ilaaliyo, dimuqraadiyaddooda loo adkeeyo, dowladnimadoodana loogu xoojiyo dhaqanka suuban aan lahayn oo ku dhisnaa qori isku dhiibka, oo la aado doorashada lagu wada kalsoonaado, boroseska aan lagu mashquulin, qof walba kaambeynkiisu galo, nasiibkiisa uu qabaa, dee qof walba ilaahay wuxuu qadaray yuu heli, saas la isugu dhiibo xilka. mudanayaal iyo marwooyin, waxaan dhammaantiin idinka codsanaya, idinka oo xiirinaya duruufaha siyaasadeed ee dalka ku gaadaaman iyo marxaladaha cakiran ee aan ku jirno, inaad nala qaadataan in lagu noqdo ama lagu laabto heshiiskii wada ogolka ahaa ee aad ansixiseen 26 Sebteembar 2020. golaha sharafta leh, waxaan rabaa inaan caddeeyo in ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu hoggaamin doono diyaarinta iyo hirgelinta doorashada iyo amniga doorashada, sidoo kale fulinta qorshaha amniga sida waafaqsan dastuurka dalka waxaa iska leh ra'iisul wasaaraha. waxaan farayaa xukuumadda inay u diyaargarowdo hawshaas baaxadda leh ama baaxadda weyn. qoraalka xubnaha goluhu waxay muujiyeen walaacaad u weyn oo ku saabsan khilaafka joogtada ah ee ka dhex jira dowladda Soomaaliya iyo saameynta taban ee ku aadan jadwalka doorashooyinka iyo geedi socodka. waxay ku booriyeen dhammaan dhinacyada inay isxakameeyaan, waxayna hoosta ka xariiqeen muhiimadda ay leedahay ilaalinta nabadda, amniga iyo xasiloonida Soomaaliya. xildheerayaasha ayaa sheegay in ismaandhaafka uu ka weeciyay dhibaatooyinka waaweyn ee Soomaaliya, gaar ahaan dagaalka lagula jira Al-Shabaab, kooxda xiriirka la leh Al-Qaacida. waxaa laga saaray Muqdisho 10 sano ka hor, laakiin weli waxay gacanta ku hayaan dhulka baadiyaha ah, waxayna sii wadaan weerarada dilalka ah iyagoo ku dagaalamaya inay afgambiyaan dowladda Soomaaliya ee caalamku aqoonsan yahay. cadaadiska doorashada ayaa sii xoogaystay tan iyo markii doorashadii la qorsheeyay ee 8 Febraayo ay ku guuldareysatay inay dhacdo, sababtoo ah waxa la isku afgaran waayay sida codka loo qaadayo. wadahadaladii u dhaxeeyay dowladda federaalka iyo hogaamiyayaasha gobolada oo bilowday bishii Maarso ayaa burburay horraantii Abriil. codsiga madaxweynaha aqalka hoose ee baarlamaanku wuxuu markaa qaatay sharci gaar ah oo kordhiyay muddada dadka hadda xafiiska haya muddo 2 sano ah, kana tanaasulay heshiiskii Sebtembar 17, 2020 ee doorashooyinka dadban, taasoo beddelkeedana loo rogay qaab hal qof iyo hal cod ah. go'aamadaasi waxay dhaliyeen mucaarad baahsan, taasoo horseeday in la abaabulo maleeshiyaad, taasoo bannaanka soo dhigtay kala qaybsanaan ka dhex jirtay ciidamada ammaanka ee Soomaaliya, waxaana ka dhashay iska hor imaadyo xooggan 25 Abriil. iska hor imaadka kadib farmaajo 1 May wuxuu ka codsaday aqalka hoose ee baarlamaanka inay ka laabtaan falalkooda oo ay ka mid tahay in muddo kordhin loo sameeyo muddo 2 sano ah. wuxuu kaloo ugu baaqay xildhibaanada inay taageereen heshiiskii ay dowladda federaalka la gashay dowlad goboleedyada 17 Sebtembar ee la soo dhaafay oo ku aadan wadada loo maro codaynta, wuxuuna ka codsaday Rooble inuu hogaamiyo diyaarinta doorashada iyo tallaabooyinka amniga ee la xiriira. waa mahadsantahay adiga xildhibaanada sharafta leh, waxaan ku faraxsanahay aan idinkaga mahadcelinayaa xildhibaanada sharafta leh inaad ku soo biirteen kalaabka tanaasul oo aad ummadda Soomaaliyeed
u tanaasulsheen haddaba si aan wakhti badan nooga lumin dalkana aan ugu horseedno doorasho si xasilooni ah ku dhacda lagana wada qayb qaato waxaan ra'iisul wasaaraha u xil saarayaa qabanqaabada iyo martiqaadka shirka madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah iyo gobolka Banaadir si loo meel mariyo qodobadii lagu heshiiyey 17 Sebtembar iyo kii 16 Febraayo ee magaalada Baydhabo oo aan wax shuruud ah aanan lagu xirin insha Allah. tani waxay horseeday heshiiskii May 27 ee ku saabsanaa qabashada doorashooyinka dadban ee sanadkan. Qoraalka golaha ammaanka ayaa ku booriyay dhammaan dhinacyada inay ku xaliyaan khilaafaadkooda wada hadal si nabadgelyo leh oo ay ku dheehan tahay doorashooyin hufan laguna kalsoonaan karo oo loo dhan yahay muddadii lagu heshiiyey iyo si waafaqsan heshiisyada 17 Sebtembar iyo 27 May.